Puntland ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku fulinaysaa raggii ka dambeeyay kufsi iyo dil loo geystay Caaisha Ilyas. Cali Cilmi Salaad hayno dhameystiro warkan. 11 bisha February 2020 oo ku beegan maanta oo Talaado ah ayaa ku mudeysan waqtiga ay xir ilaalinta Puntland ay ku dhawaaqday in la toogan doono 3 eedeysane ee loo haysto kiiskii Caaisha Ilyas. 12 bishii January ee la soo dhaafay xir ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa si rasmi ah u mudeeyay waqtiga la fulin doono qisaasta 3 nin ee ku xukuman kiiskaas. Cabdifataax Maxamed Warsame, Cabdisalaan Maxamed Warsame oo walaalo ah iyo Cabdishakuur Maxamed Digi ayay xir ilaalintu sheegtay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii February 2019 magaalada Gaalkacyo lagu geystay gabar 12 sano jir ahayd oo lagu magacaabay Caaisha Ilyas Aadan. raggan ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxa ay dil toogasho ku riday 12 bishii May ee 2019 xukunkaas oo maxkamadda racfaanka ay ku raacday 30 Juun ee 2019 mar uu warbaahinta la hadlayay Ilyas Aadan oo ah Caaisha aabaheed ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah raggii dilka iyo kufsiga u geystay gabadhiisa diyaarad laga saaray magaalada Garowe inkastoo maamulka Puntland ay arintaas gaashaanka ay u durureen 25 bishii labaad ee February ee 2019 Caaisha Ilyas Aadan oo 12 sano jir ahayd ayaa dil iyo kufsi loogu geystay xaafadda Sinai ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu wada hadallo kula yeeshay madaxweynaha Golaha Midowga Yurub Carles Michel. kulanka ayaa labada dhinac waxay isaga wareysteen horumarka ay dawladda ka sameysay dib u habeynta hay'adaha amniga, horumarinta dhaqaalaha, xaaladihii ugu dambeeyay ee Geeska Afrika. sidoo kale labada madaxweyne ayaa kulankooda waxaa looga hadlay taageerada Midowga Yurub ee ku aadan dawlad dhisidda Soomaaliya, waxaana madaxweynaha Golaha Midowga Yurub uu ballan qaaday in ay taageerada kordhin doonaan. xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ayaa waxa ay ka taagan tahay inta u dhaxaysa degmooyinka Cadaado iyo Caabud Waaqi ee gobolka Galgaduud. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. wararka saaka naga soo gaaraya deegaano u dhaxeeya degmooyinka Cadaado iyo Caabud Waaqi ee gobolka Galgaduud ka tirsan ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay saaka xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ee wada degta deegaanadaasi. xiisada u dhaxaysa labada maleeshiya beeleed ayaa waxa la sheegay inay salka ku hayso dhul daaqsimeed ku yaala halkaasi iyo sidoo kale aanooyin qabiil. deegaanada ay xiisada ka taagan tahay ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka, iyadoona dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. hase yeeshee odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ayaa bilooyinkii dambe waxay wadeen waawaan u dhaxaysa labada maleeshiya beeleed, inkastoo waawaantaasi aan lagu guulaysan. dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ay soo wajahday cabsi kadib markii shalay labada maleeshiya beeleed ciidamo ka kala tirsan ay halkaasi gaareen. weli wax wara kama soo bixin mas-uuliyiinta maamulka Galmudug oo ku aadan xiisada dagaal oo ka soo cusboonaatay inta u dhaxaysa degmooyinka Caabud Waaqi iyo Cadaado oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. saraakiisha ciidamada dawladda ayaa bilooyinkii dambe waxay wadeen waawaan lagu dhexdhexaadinayo dadka ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud, iyadoona saraakiisha ciidamada dawladda ee ka howlgala gobolka Galgaduud ay inta badan ku guuleysteen sidii ay nabad u dhaxdhigi lahaayeen maleeshiyaadka ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. wararka ka imaanaya magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ee dawladda Kenya ciidamo dheeraad ah keentay magaaladaasi. ciidamada ayaa watay gaadiidka dagaalka sida ay wararku sheegayaan. arintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ee ka soo jeeda magaalada Mandheere ay dawladda Kenya ugu baaqeen in ciidamo uu wato wasiir janan ay ka baxaan magaaladaasi. dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. wixii ku soo kordha wararkeena xiga iyo barnaamijyadeena ayaad ku maqli doontaan haddii alla uu idmo. isla wararka Kenya inta aan ka bixin, maamulka Wajeer ayaa sheegay in qasab ay ku qoranayaan macallimiin kadib markii qaar ka mid ah macallimiinta ay isaga carareen weerarada Al-Shabaab. Maslax Abuukar Xaaji ayaa faahfaahinaya. horaantii bishii aynu ka soo gudubnay Janaayo waxa ay u ahayd guud ahaanba ismaamulada Soomaalida Waqooyi Bari Kenya bil aysan ku farxin natiijooyin aan wanaagsaneyn ay ka soo baxeen
macallimiin isaga tegay guud ahaanba ismaamulada Soomaalida kuwaasi oo ka baqay weeraro uga yimaada al-shabaab oo ay naftooda ku waayaan. tan iyo markaasi waxaa hogaamiyayaasha ismaamulada Soomaalida ay soo jeedinayeen qaabab kale oo macallimiin loogu qori karo Soomaalida inkastoo aysan suuragelin, waxaana ay ku eedeeyeen wasaaradda waxbarashada Kenya in ay ka cagajiidayso in macallimiin cusub ay u qorto ismaamulada Soomaalida. Maxamed Cabdi waa madaxweynaha ismaamulka Wajeer, waxa uu hadda ku dhawaaqay in hadda wixii ka dambeeya maamulkiisa uu jibinayo shuruudaha u yaala wasaaradda waxbarashada dawladda dhexe ee Kenya, isaga oo ku dhawaaqay in macallimiin si iskood ay u qoranayaan si waxbarasho waafi ah ay u helaan ubadka wax ka barta deegaanada ismaamulkiisa. Teacher Service Commission oo macallimiinta Kenya qoraan waata ay la bixeen macallimiintii kulli ka imaaday Soomaali aan ahayn kulli way qaadeen. saa daraadeed annaga inkasta oo county ahaan macallin aan qori karin, laakiin hadda sharciga waan jebinaynaa, waan qoraynaa. sababtaan u yeelaynana waxaa waaye dad wax loo maqan annaga ma laha. haddii dawladdu markaan ay macallimiinteeda la noqotay annaga waa qoraynaa macallimiinta ayagahay ka codana inta reer Wajeer oo countyda ka shaqeysa meel ay joogaanba iyo kuwa aan countyda ka shaqeyn oo Nairobi iyo meel kasta jiraan ka inay isa soo saaraan oo dad maxkamad inaan aadna ayaan rabnaa. maxaa yeelay qaynuunka Kenya wuxuu leeyahay TSC Teacher Service Commission waxaa laazim ku ah in meel kasta oo Kenya dhexdeeda school kasta in ay macallimiin ay geeyaan. waa shardi waay, ma aha yani shay ay ayaga siday rabaan ay yeelanaan maaha. Constitutionka Kenya ayaa midda awooddaasna siina. marka maadaama howlgab isku dhacay Teacher Service Commission inaan maxkamad tagna ayaanu rabnaa, waana ku guulaysanaynaa sida aan qaybayna. al-shabaab oo dhowr jeer oo hore weeraro ka fuliyay gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa weeraradaasi intooda badan waxa ay saameyn ku yeesheen macallimiintii wax ka dhigayay gobolka Waqooyi Bari Kenya kuwa oo naftooda kala baxsaday halkaasi, balse waalidiin badan waxa ay walaac ka muujinayaan xaaladda waxbarashada liidata ee ubadkooda ay wajahayaan. dad ku sumoobay biyo ay ku cabeen deegaanka Ceel Jaale ee gobolka Hiiraan ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Beledweyne sida warkan uu Beledweyne inooga soo diray wariyaheena Cismaan Aadan Carays. lixdan qof ee la dhigay isbitaal ku yaala duleedka magaalada Beledweyne ayaa xaaladooda haatan ay tahay mid ka soreynaysa sidii uu Kenya u sheegay Dr. Maxamed oo isaga ka mid ah howlwadanada isbitaalka ku yaala magaalada Beledweyne. waxay ku sumoobeen dadka horta waxay ahaayeen tiradooda 6 qofood ah, 4 qof oo yar carruur ah iyo 2 qof oo waaweyn. waxay ku sumoobeen in biyo ay isticmaaleen, qaarna waxay ku cuneen raashin ay ku korsadeen, qaarna si toos ay u cabeen. dhammaantood sunta ay wada saameysay. lixdooda isbitaalka yaa la seexiyay, waxaan marsiinay qiimeyn ilaa iyo 7 saacadood ah. waa daaweynay dhammaantood, qaarna way sumayeen, qaarna way matagayeen. dhammaantood waxaa la seexay isbitaalka. sida aan ku helnay waraysiga waxay ka dhalatay kolley biyo sun ah oo suntaan loo isticmaalo beeraha. suntaas ayaa waxay gaartay biyihii isticmaalayeen. dhanka kale weli waxaa magaalada Beledweyne ka jira xanuunka shuban biyoodka ka oo soo ridanaya dadka waaweyn iyo carruurtaba, maadaama dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhowba ay isticmaalaan biyaha webiga Shabeelle xilligan aan nadiif ahayn. xilli walba marka la gaaro kulaylaha ayaa inta badan waxaa magaalada Beledweyne lagu arkaa xanuunka shuban biyoodka. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada ayaa dhaliil u soo jeediyay hay'aduhu inay ka gaabsheen waxa ka qabashada xanuunka shuban biyoodka oo xilligaani ay u jiifaan isbitaalada ku yaala degmooyinka gobolka Hiiraan sida degmada Jalalaqsi, Buule Barde iyo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraanba. in ka badan 100 askari oo Mareykan ah ayaa laga helay dhaawacyo maskaxda ah oo ka soo gaaray weeraradii Iiraan ee Ciraaq. in ka badan 100 askari oo Mareykan ah ayaa laga helay dhaawacyo fudud oo maskaxda ka soo gaaray kadib weerarkii gantaalaha Iiraan ee bishii hore lagu qaaday saldhig military oo Mareykanku ku leeyahay Ciraaq, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka ee aqoonta u leh arrintan. Trump ayaa 8 bishii Janaayo sheegay in askartiisa aysan wax khasaare ah ka soo gaarin weeraradii Iiraan ay la beegsatay saldhigyo ay ciidamadiisu ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq.
isniintii saraakiil mareykan ah ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in qaar ka mid ah militariga ay isku diyaarinayeen xilligaasi in ay seexdaan oo nasiino galaan balse mar qura ay saameyn ku yeelatay joogta madaafiicda aadka u cusleed ee la beegsaday xiradooda